wadsalaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena 1x1 waxaanu kusoo qaadan doono wararka iyo warbiximihii ugu dambeeyey. waxaan wadeegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta, kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doono iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. aynu ku bilownay kooxda Ajax ayaa filaysa inuu kasoo gaari doono kooxda Manchester United dalab ah 90 milyan oo euro, kaas oo ay kooxda Manchester United ku doonayso ciyaartoyga Anthony, waxaana la filayaa inuu qiimaha heshiisku gaari karo 95 ilaa 100 milyan oo euro, iyadoo ciyaartoygu kooxdiisa Ajax ka dalbaday inay u ogolaato kooxda bixitaankiisa. haddaba kooxda Ajax ayaa doonaysay inay ciyaartoygan qiimihiisa kor u qaado oo ilaa 100 milyan oo euro ay ku fasaxdo, waayo ciyaartoygan markii ay soo iibsanaysay kooxda Ajax waxay ka soo iibsatay kooxda Sao Paulo ee reer Brazil. haddaba heshiiska ay labada kooxood galeen waxaa ka mid ahaa in hadhow kooxda Ajax haddii ay ciyaartoygan iibinayso inay 20% qiimaha lagu iibiyo inay yeelan doonto kooxda Sao Paulo, oo hadda haddii ay kooxda Ajax ciyaartoygan ku iibiso 100 milyan oo euro waxay kooxda Ajax qaadan doontaa 80 milyan, halka ay kooxdiisii hore ee Sao Paulo ay qaadan doonto 20 milyan oo euro. haddaba kooxda Manchester United ayaa hadda yaraysay ciyaartoydii kale ee ay isha ku haysay, tusaale ahaan sida ciyaartoyga Jakpo ee u ciyaara kooxda PSV, waxayna hadda kooxda Manchester United awoodda saaraysaa sida ay u dhammaystiri lahayd heshiiska ciyaartoyga Anthony, oo kooxda Manchester United ayaa joojisay ciyaartoydii kale ay isha ku haysay oo waxay hadda doonaysay in ciyaartoyga Anthony dhammaystirto kadibna ay kooxdu u dhaqaaqdo heshiisyada kale. sidoo kale kooxda Manchester United ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay goolwadaha kooxda Newcastle United ee Dubravka, waxayna doonaysaa kooxda Manchester United inay ciyaartoygan kula soo wareegto hab amaah ah inta kadib ay kooxdu si rasmi ah u iibsato haddii uu ciyaartoygu anfaco. haddaba hadda ma jiro wax isfahana ama wax is-afgarad ah oo u dhexeeya labada kooxood, oo ciyaartoygu hadda kuma jiro liiska ciyaartoyda kooxda Newcastle United ee ka qayb qaadan doonta kulanka koobka, waxaana la sheegay inuu ciyaartoygani soo dhaweynayo fikirka ah ku biiritaanka kooxda Manchester United. dhinaca kale ciyaartoygii hore ee kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti ayaa muddo hal xilli ciyaareed oo amaah ah wuxuu ugu biiray kooxda ka dhisan wadanka Talyaaniga ee Lecce. haddaba kooxda Barcelona ciyaartoygan ugu dambeyn waxay ku guuleysatay inay amaah ku dirto, oo siyaasadda ay ka wadato ama fikradda ay kooxda Barcelona ciyaartoygan u dirtay ayaa ah oo kooxda Barcelona ciyaartoygan markay dirtay oo kooxda Lecce halka xilli ciyaareed uu ciyaarayo inuu halka xilli ciyaareed ciyaartoyga Umtiti uu soo ceshado qaab ciyaareedkiisii oo uu ciyaartoygan u tuso kooxaha kale ee Yurub ee dhexdhexaadka ah, kooxaha Lecce ka waaweyn inuu tuso ciyaartoygan inuu weli leeyahay tayo oo ciyaari karayo. oo kooxda Barcelona halka xilli ciyaareed ciyaartoyga amaahda ku maqan yahay mushaharkiisa oo dhan waxa bixin doonta kooxda Barcelona. haddaba kooxda Barcelona waxay doonaysaa inay hal xilli ciyaareed mushaharka ciyaartoygan bixiso, oo halka xilli ciyaareed markay bixiso mushaharka ciyaartoyga oo ciyaartoygu si fiican u ciyaaro inay hadhow kooxi soo dalbato kooxaha dhexdhexaadka ah oo kale oo ay hadhow iibiso. haddii kale kooxda Barcelona waxay ka baqaysaa haddii aanay halka xilli ciyaareed bixin inay ciyaartoygan bixin doonto mushaharkiisa oo dhan inta uu hadhay heshiiskiisa oo ka badan 2 sano, oo kooxda Barcelona waxay ku noqon doontaa malaayiin euro. halka uu ciyaartoyga kooxda Real Sociedad uu soo gaari doono galabta Newcastle United si uu tijaabada caafimaad ugu maro kooxda. sidoo kale uu u dhammaystiray heshiiska kooxda oo si rasmi ah ayuu ugu biiri doonaa kooxda, waxaana la sheegay inuu yahay qiimaha ay kooxda Newcastle United ka bixisay ciyaartoygan ama weeraryahankan 50 milyan oo pound. sidoo kale waxaa la sheegay inay kooxda PSG dalab 70 milyan oo euro ah kasoo gudbisay ama ay u gudbisay kooxda Manchester City, dalabkaas oo ay ku doonaysay ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester City ee Bernardo Silva, halka ay kooxda Arsenal u aragto inuu qiimaha ciyaartoyga Tielemans uu hadda yahay qiimaha u sareeya, oo taa beddelkeeda ay kooxda Arsenal awoodo inay ciyaartoygan si lacag la'aan ah ama bilaash ah kula soo wareegto ciyaartoygan xagaaga dambe, xilligaas oo uu dhammaanayo heshiiska uu kula jiro ciyaartoyga Tielemans kooxdiisa Leicester City. oo kooxda Leicester City ilaa hadda waxa heshiis kordhin ah oo ay u soo bandhigtay ama ay isku afkarteen ma jirto ciyaartoyga. sidaa darteed kooxda Arsenal ayaa aragtay inaanay hadda ku degdegin ciyaartoygan oo aanay la soo wareegin, oo ay hadhow ku heli karaan xagaaga dambe ciyaartoygan lacag la'aan. bal markan aynu eegno waxaa la beeniyay wararka ahay inay jireen wadahadal u dhexeeyay ciyaartoyga Cristiano Ronaldo iyo kooxda Olympic Marseille, kaas oo ahayd inuu ciyaartoyga Ronaldo doonayo ku biiritaanka kooxda si uu xilli ciyaareedkan u ciyaaro ama uu uga qayb qaato koobka Champions League. haddaba wararkaas waxaa la xaqiijiyay inaanay waxba ka jirin, oo hadda ay sii badatay suuragalnimada ah inuu sii joogi karo kooxda Manchester United ciyaartoyga Cristiano Ronaldo. dhinaca kale waxaa la soo saaray isku aadka wareegga saddexaad ee koobka EFL Cup-ka ama Carabao Cup-ka, waxaana ka mid ah kulamada ugu muhiimsan. kooxda Chelsea ayaa la ciyaari doonta kooxda Manchester City
iyo kooxda Manchester United oo ka hor imaan doonta kooxda Aston Villa halka ay kooxda Arsenal waajihi doonto kooxda Brighton. haddaba kulamada wareegga saddexaad ee koobka Carabao Cup-ka waxaa la ciyaari doonaa inta u dhaxaysa 7 ilaa 9 bisha November. haddaba kulamada la ciyaari doono haddii ay kulamadaasi 90 daqiiqo ee la ciyaaraya haddii ay kusoo dhamaadaan bareejo waxaa toos loo aadi doonaa rikoodhayaasha ama goolkulaadka oo ma jiri doono waqti dheeri ah ama extra time in la ciyaaro oo labadii kooxood ee baraajeeyaba waxay toos u aadi doonaan rikoodhayaasha. sidoo kale waxaa la sheegay inay kooxda Olympic Lyon ka diiday kooxda West Ham dalabaha 40 milyan oo euro kaasoo ay kooxdu ku doonaysay ciyaartoyga Lucas Paqueta. waxaana la filayay inay kooxda West Ham mar kale ku laaban doonto kooxda oo ay dalabkii hore ka fiican ka gudbin doonto ciyaartoyga xilli ay wakiilka ciyaartoygu ku sugan yahay magaalada London oo uu wada hadal kula jiro kooxo kale oo Ingiriis ah ama kooxo kale oo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska oo aanay ahayn kooxda West Ham kooxda kaliya oo ciyaartoygu wada hadal kula jiro. waxaa iyaduna joogsaday wada hadalkii u dhexeeyay kooxaha Chelsea iyo Ajax kaasoo ay kooxda Ajax ku doonaysay ciyaartoygeedii hore ee Siyaad. khilaafka ayaa ah inay kooxda Chelsea doonayso inay ciyaartoygan ku fasaxdo ugu yaraan 44 milyan oo euro. haddaba heshiiskan wax si fudud ama wax is afgarad ah oo dhexmari ma jirin labada kooxood balse waa suuragal heshiiskan inuu dhaco oo ilaa hadda ma jiro wax is afgarad ah u dhexeeya labada dhinac balse maaha mid saa u sii fog heshiiskan oo waa u dhici karaa. halka uu sheegay tababaraha kooxda Borussia Dortmund inaanay iibin doonin ama aanay diyaar u ahayn kooxda Borussia Dortmund inay iibiso ciyaartoygeeda Thomas Meunier oo ciyaartoygan ayaa waayihii ugu dambeeyay waxaa lala xiriirinayay kooxda Barcelona. qodobada kale ee barnaamijkana waxaa ka mid ah warbaahinta London sida ay sheegtay ciyaartoyga Harry Kane ayaa hadda la saadaalinayaa inuu soo dhaweynayo fikirkaasi joogida kooxdiisa Tottenham oo sidoo kale ciyaartoygan ayay suuragal tahay inuu ogolaado inuu kooxda Tottenham u sameeyo heshiis kordhin oo Harry Kane ayaa hadda la filayaa inuu ku qancay kooxda Tottenham oo uu sii joogi karo kooxda sidoo kale uu heshiis kordhin u sameyn karo. sidoo kale kooxda Manchester United ayaa ku fikiraysay inay ciyaartoyga kooxda Real Madrid ee Marco Asensio ay ka gudbiso dalab ah 30 milyan oo euro iyadoo ay ciyaartoygan doonayaan sidoo kale kooxo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska iyo kooxo ka ciyaara horyaalka Talyaaniga. halka ay kooxda Juventus si rasmi ah weeraryahanka kooxda Olympic Marseille ee Milk hal xilli ciyaareed oo amaah ah kula soo wareegtay. ugu dambeyntii ciyaartoyga kooxda Real Madrid ee Mariano Diaz ayaa la sheegay inay dhowr kooxood ka soo gudbiyeen dalab balse ciyaartoyga ayaa ugu jawaabay maya oo ciyaartoyga Mariano Diaz waxa uu rabaa inuu sii joogo kooxda. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like, subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.